hagafyada tilaabada markuu horay u laafyooday haween quruxsan moogiye nin ragahansihii ma leh halowyo ma joogta heblaa hadal ku joogaahe hiddaa lagu barbaarshaye haddaan hooyo kala nuujin hiddaa lagu barbaarshaye haddaan hooyo kala nuujin hawraarta quman ummadda waa lagu hanuunshaahe inaan helinka laalada ka duwa wow hanweey inaan helinka laalada ka duwa wow hanweynaaye yartaad sida hareeriga ku yaal hogobka buureedka dhirta uga hanweyn tahay hablaha uga maantaaba hanaanka iyo joogsiga yartii qurux lahaaneede hubkeediyo malaykan markay hodan ku laafyootay tima hudur madoobahe garbaa haraf ku soo gaaray hilif lagu maleegiyo marnaan heega lagu taagin oon hagoogi taageera iyo buruka lagu huurin inkastay hanaanka aqabtiyo haybad lagu faansho amay laba horaadoo sinsiman horay u soo taagtay hagaag ugu dhammay waaye indhaha howlkarkiir hagaag ugu dhammay waa indhaha howlkarkii rabaye waxaahi majab wiilka ugu filan hawsha berigaahe hawraarta quman ummadda waa lagu hanuunshaahe inaan helinka laalada ka duga wowhan waay inaan helinka laalada ka duga wowhan weynaaye hayeeshee waxaan uga haroon hadalkii buu gaabshay sirwaal halasha goortay jilbaa hoos ka soo geliday ee habarya odayaa dhalaye hawdka lagu daaye ee habeen barkiiyo saq dhexe hoygii laga waayey markay hadal tanaaga nin tegay horay ka qoorsiisay ee halood waxyaaliyo jiddheer halabsatee laacday jiddheer halabsatee laacday markay hebel la socoshiyo taqaan hoodi iyo waykan haadka gawaarido martana boorsa la hanfiicdo ee hebel iqaad iyo halkay hadal isweydaartay ninkaan ku hurgufayn lacag haddii lala heshii waayey hablow maas barqabataan haddii horayba loo sheegay horta bara tacliintay ku tiri huban jawaabtiiye hebla meeday iyo moogiba hadal ku joogaahe maxaan hooga ugu saadiyaa heer kuwa nabada intaas aynu ku dhaafno guuroogii qiimaha badnaa allah u naxariistay abwaan maxamed gacal xaayoow